taariikhda noo geli allah yow tusnaadnaye tubta orodka dheeriyo baskid gacanta turiyo caalan wadaha tosiya oo tilmaanta bixiya guusha kama tegayne allah yow tusnaadnaye tubta orodka dheeriyo baskid gacanta turiyo caalan wadaha tosiya oo tilmaanta bixiya guusha kama tegayne tu kastaba ka badiyo tajirow allahayo taariikhda noo geli taariikhda noo geli tu kastaba ka badiyo tajirow allahayo taariikhda noo geli taariikhda noo geli diigsada asaagiin Soomaalidu tahay guul diigsada asaagiin Soomaalidu tahay guul halkii aad ku toostihiin kuma turontahan tuur goolka tuur shabaqana ku toosi 1 2 3 4 go taageera badan baa ahaan garabkiina taagan farxad guud le kala taga 1 2 3 4 diigsada asaagiin Soomaalidu tahay guul diigsada asaagiin Soomaalidu tahay guul halkii aad ku toostihiin kuma turontahan tuur goolka shabaqana ku toosi 1 2 3 4 go taageera badan baa ahaan garabkiina taagan farxad guud le kala taga 1 2 3 4 allah yow tusnaadnaye tubta orodka dheeriyo baskid gacanta turiyo caalan wadaha tosiya oo tilmaanta bixiya guusha kama tegayne allah yow tusnaadnaye tubta orodka dheeriyo baskid gacanta turiyo caalan wadaha tosiya oo tilmaanta bixiya guusha kama tegayne tu kastaba ka badiyo tajirow allahayo taariikhda noo geli taariikhda noo geli tu kastaba ka badiyo tajirow allahayo taariikhda noo geli taariikhda noo geli allah yow tusnaadnaye tubta orodka dheeriyo baskid gacanta turiyo caalan wadaha tosiya oo taariikhda noo geli taariikhda noo geli
taariikhda noo geli bulshada caalamka waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa warbaahinta duubasa barnaamijkan oo aad waxa weeye barnaamijka waqti badan ku bixiyey tan iyo saa ka shaqaynayey saa ka soo tilmaaday waa mahadsan yihiin sidoo kale madaxda si guud bay wada salaaman yihiin ayagoo mid walba salaantiisa ku qaadanayo booska uu taagan yahay iyo meesheeshinka uu hayo intaa kadib waxaan rabaa inaan wax yar kusoo dhaweeyo isagana agaasinka arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda isboortiga dhalinyarada cabdiraxmaan sheekh axmed duqa magaalada dr cabdisalaam bashiir cabdisalaam kasoo qaybgala xildhibaanada golaha deegaanka dhammaan waxay ku salaamaya iyo kasoo qaybgalaasha dhammaan intii soo qabaqaabisay intii maxaan ku dhacdaayey hadda ka qayb gashay dhammaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddigeedagii qabaqaabada waxaa u hadlay cabdullaahi bootaan baa u hadlay oo marxaladihii kala duwanaa aanu soo marray ka hadlay aad baan u mahadcelinayaa inta ka soo qayb gashay inta qabanqaabisay iyo inta maxaan ku dhahdaayey orodkooda tijaabisay ee ka qayb ka qaadatay kuwa guulaystay iyo kuwii aan guulaysanay meelaha ufa ku haray laakiin u soo baxay in ay maxaan ku dhahdaayo orodkooda iyo firfircoonadooda tijaabiyaan waa tallaabo isku fid oo aad mudan bay ahayd oo halabuurkeeda lahaa uu mahadsan yahay agaasinku barnaamijka waa soo kooban doonaa insha allah qofka soo hadlaya waxaan ka codsanayaa inuu soo gaagaabiyo maadaama waxoogaa kulayl uu jiro waxaan ku soo dhawaynayaa wax yar intaan u gelin garsoorayaasha maclimadii barnaamijkan si fiican uga qayb qaadatay oo ah maclimad qaran aadna maamuus weyn noogu leh maama maradona kusoo dhawow si kelmadaada adoo soo koobaya insha allah بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ciidanka Puntland nooc walba uu yahay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa madaxweynaha ee Puntland waxaan kaloo halkan ka salaamayaa wasiirkeenii sharafta lahaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa qarankii hadda kan raayay kan aan reeninba orodka soo dhameeyay waa wada guuleysteen aniga waxaan u taaganahay maadaama aan macallinahay inaan ku faano maahan waxaan u taaganahay in aan dhaxal reebo waxa weeye wasaaradda shaqadii shaqaalaha waxaan ku dhaliilayaa macallimiinta qarsoon aniga iyo kuwa kale in ay u shaqadiraan si wadanka wax dhaxala loogu tago orodkaana hadda waxa soo qaban qaabiyo on aad ugu mahadinayaa degmada Boosaaso iyo madaxdeeda dowladda hoose shucuurtayda wax la koobi kara maahan orodka u dambeeyay ee aniga aan ku guuleystay marathon buu ahaa 5,000 runtii maanta waxaan maleynayaa in aniga orday waayo aniga coach haddana orodkii aan ku qalan jabiyay marathonka ayaa la ordayaa oo ciyaaraha fududna orod kaliya maahan waa bootin waa champion qofka markuu marathonka 40 kilomitir soo ordo waa ciidan wadaniya sidaasaba orodka waa ciidankana waa isboortigana waa wadani waa sida Cabdullaahi Yuusuf aniga dhaxal igu reebay waan salaamantii maama Maradona waxaan rabaa wax yar ku soo dhaweeyo shirkadihii waxa weeye barnaamijka iyaguna si fiican uga qayb qaatay waxaan ugu horumarinayaa golis soo dhaw بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وزيرك وزارة شغالها dhalinyarada ciyaaraha maayarka degmada Boosaaso shaqaalaha dowladda hoose tarsamayaashii baha saxaafadda ka soo qaybgalayaasha dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii anoo ku hadlaaya magaca shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya waxa sharaf weyn noo ah inaan qaybka iyo howlwadannada degmada Boosaaso waa wax lagu farxo runtii bulshada in haddii alaba guuraya da'yarteeda la jihayo oo loo sameeyo barnaamijyo
intay ku mashquuli lahaayeen waxyaabo kale oo in lagu mashquuliyo waxyaabo naftooda iyo mustaqbalkooda wax ku biirin kara sida in lagu walaalayo ciyaaraha kala duwan orod kubad wixii la mida waa arrin muujinaysa caafimaadka bulsho waa arrin muujinaysa runtii bulshadu inay waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada Boosaaso ah hal-abuurihii ikhtiraacadihii barnaamijkan ka dambeeyay insha Allah asagoo aad u mahadsan gudoomiye Cabdisalaan ku soo dhawow mudan الرحيم وزيرك وزارة شغالة شغالة دلنيرة سبورتسكا دولة بونتلان سراكيش كسرعة وزارة عافماتكا حلوانا دا قولها الدقان كي دقمة بوصاصو عيدا مدى أمانكا كسو قيب قلياشا بعض الصحافة دا مرنا أن الله وكرين إذا لهانتين بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته farxad weyn bay noo tahay maanta in tartankii muddada dhowrka maalmood qabanqaabadiisa aynu soo wadnayno maanta halkeen noogu soo gabagaboobo waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa dhammaan dhallinyaradii reer Boosaasood ilaa 350 qof baa orodka ka soo qayb galay oo soo tartamay waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa sida wanaagsan oo kartida leh ee barnaamijkan ee orodka ay u muujiyeen inay yihiin dad tartami kara waxaan kaloo aad iyo aad u dhiirigelinayaa dhammaan dhallinyaradii iyo gudiyadii kala duwanaa oo hawshatan wax inay qabsoonto ka shaqeeyay waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa cid walba oo gacan ka geysatay inuu tartanka kan uu dhaco ee ugu horeeyaan ciidamada ammaanka ee dawladda Puntland ee ku xigaan saxaafadda oo ilaa iyo xilligii hawshan ay socotay qayb libaax la xoog la ka qaatay ee ku xigaan shirkadihii reer Boosaasood oo iyaguna ka qayb qaatay inuu tartankan hirgalo ee ugu horeyso shirkadda Golis ee ku xigto shirkadda Amal ee ku xigto shirkadda Puntland Petroleum ee ku xigto Hotel Huruse oo ku xigto Asal Jet Finin Steel iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo ka qayb qaatay iyagana waxa la aad iyo aad u mahadsantihiin waana idinka mahad celinaynaa in dhalinyarada reer Boosaasood ay dhiirigelisaan waxaan marna ilaawi karin shaqadii wanaagsaneed ee soo qabteen bahda wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ee gobolka oo haatan xoogayay nagala joogo waxaan marna aan la ilaawi karin shaqadii ay qabteen bahda wasaaradda caafimaadka oo la'aantood wax badan ay qabyo noqon lahaayeen iyagana waxa la aad iyo aad u mahadsantihiin haatan nagala joogo madaxa MCA-yada gobolka Bari Johro Muuse kelmadaydu iska mahad celin bay ahayd waa dhiirigelinayaa dhammaan insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada mar walba aan waqti siino oo hawlaha dhalinyaradana xooga aanu saarno shacabka reer Boosaasood iyo dhalinyarada reer Boosaasoodna waxa leeyahay waxa weeye maanta waa tartanay berri waxay noogu xigtay inaan koobab qabsano oo dhalinyarada isdhexgalkii xaafadaha laga shaqeeyo laakiin shaqooyinkaas oo dhan waxa ka horeeya in garoonkii la dayactiro oo la dhiso haddii waxa lagu dhisayna waa dhalinyarada iyo ummadda reer Boosaasood dadka la raba inay dhisaan waa dadka reer Boosaasood insha Allah tacaala anaguna abaabulkii iyo sidii qorshe fiican oo miro dhala loogu keen lahaa waan ka shaqeynaynaa anagoo la kaashanayna dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda ugu horeysa wasaaradda dhalinyarada iyo sportska aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada iyo sportska Mudane Cabdiraxmaan Sheekh الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ugu horeyn waxaan rabaa inaan salaan kaliya laaba iyo bogaad inaan soo jeediyo gudoomiyaha iyo xubnaha golaha deegaanka degmada Boosaaso waxaan rabaa sidoo kale inaan anigoo codkayga ku biirinaya soo jeediyo hambalyo iyo farxad dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas'uuliyiintii xafladan quruxda badan noocay doonto ha ahaatee ka qayb qaadatay inay maanta tartankan aadka u qurux badan xaqiiqdii dareenkayga aad u soo jiitay hirgeliyey suurtageliyey dhammaantood waxaan rabaa iyagana inaan u mahad celiyo salaan iyo kal iyo laaban aan u soo gudbiyo haddaan uga gudbo salaanta iyo mahad celinta intaa waxaan rabaa inaan la wadaago farxadda iyo dareenka halka yaal dhammaan bulshada reer Boosaasood gaar ahaan dhalinyarada iyo gudoomiyaha iyo golaha deegaanka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyo wasaaradda caafimaadka oo si mugle uga qayb qaatay taabagelinta tartanka ku dheeraan maayo ama ma rabo inaan wax badan ka yiraahdo muhiimadda ay leedahay dhalinyarada
iyo in dhallinyarada la hanto oo la dhiirigeliyo. Dhabtii waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddoomiyaha iyo golaha deegaanka oo cusub oo muddo kooban joogay oo shaqaynayay himilada iyo garowsiyaha ay garowsadeen muhiimadda dhallinyaradu ay leedahay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaana taa muujinayaa guddoomiye waa nin dhallinyaro ah. odayaasha waaweyn anigu aan ugu horreeyo hore uma soo kacaan weliba maalmaha jimcaha ah waa dareemi kartaa dhallinyarada gadaashiga joogta dhammaan waa dhallinyaradii ee ku soo biirtay golaha deegaanka. waxaana muujinaysaa inay u geliyaan xooggooda iyo maskaxdooda horumarinta iyo isku xilka iyo abaabulka iska warhaynta arrimaha dhallinyarada iyo guud ahaan arrimaha bulshada. aad iyo aad baa guddoomiye u mahadsantihiin. arrintan sidaad la socotaan waxay wax weyn ka tari kartaa horumarka dhallinyarada, dareenka dhallinyarada, amniga magaalada, wadajirka iyo isku duubnima dadnimo ee dadka degmada Boosaaso. dhabtii waa arrin aad iyo aad ii farxad gelinaysa. waxaan rabaa marka inaan bogaadiyo dhammaan bahda isboortiga oo ay aamina maaradoon ugu horeyso. aamina maaradoon madiina aaminaan ugu bedelaynaa madiina insha allah billahi kariim. waxa weeye taariikh dhaweyn ma oranayo taariikh hore ayay tartanka ku soo biirtay iyada iyo hurfe iyo bahda isboortiga. waa ka garan karaysaan farxadda ay u qabaan bahda isboortigu arrimaha noocan oo kale ay marka la kulmaan. dhabtii iyo runtii waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan. waxaan rabaa dhammaantiin marka inaan ini hambaliyeeyo bahda isboortiga. waxaan rabaa si gaara inaan ugu hambaliyeeyo dhallinyaradii tartankan saaka ay qaadatay. waan dhawo dhammaantiin waa guulaysateen. isku day fiican baad samayseen oo farxad naftiina gelinaya inaad ka qayb qaadataan. waxaana si gaara ugu mahad celinayaa tartanka dhallinyarada ku guulaysatay oo xaqiiqdii aan u jeeday sidii maaratoonada caalamiga ka dooman jiray dadka qaybna inay juhdi geliso aad iyo aad u ordaysay qaybna iska soconaysay. aniguba saasaan noqon lahaa haddaan tartanka ka qayb geli lahaa. marka aad iyo aad ugu mahadsan yihiin intii tartantay iyo intii soconaysay intuba farxad iyo hambalyo iyo hore socod baan idin rajaynayaa. ugu dambeyn kelmaddeeda waxa rabaa inaan ku soo xiro wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo hadalkii uu guddoomiyuhu halka soo jeediyey oo gaar ahaan ku aadanaa dhismaha garoonka ee degmada Boosaaso oo u baahan in la horumariyo, la casriyeeyo, sida uu hadda yahayna wax ka bedelo. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa barnaamijkii isku tashiga ahaa ee dowladda Puntland ay keentay ama hindisi ay la timi ahaa inuu miro dhalay. ugu horreyn aan u mahad celiyo dhallinyarada iyo shacabka degmada Gaalkacyo oo hindisihii aan la nimi iyo abaabulkii ka miro dhaliyey. sida la socotaan garoonka ee degmada Gaalkacyo Cawaale rooggiisa waa la dalbay, waa soo socdaa. ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyo ayaan rajaynaynaa. kuraas ilaa 3 kun oo xabba ah oo casri ah iyaduna waa la socotaa. dhammaanna dayactirkii garoonka waa gabagabo marayaa, meel fiican buu marayaa. arrintaas waxay ku timi dadka reer degmada Gaalkacyo, dhallinyaro, maamul, golo degaan, waalid, hablo, hooyooyin oo gacmaha isqabsaday. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa degmada Garoowe oo iyadana arrintaas meel fiican marayso. waxaa la socdaa degmada Boosaaso inaan isku dayo badan samaynay, laakiin iyadoo aad degmada Boosaaso degmadii ugu dhaqaalo badnayd dalka garoonka Boosaaso ugu dambeeyo sax ma aha. waxaan marka guddoomiyey adiga iyo dhallinyarada reer Puntland, dhallinyarada reer degmada Boosaaso aan idinka codsanayaa inaad hormuud u noqoto. guddigii si dhaqsaad u dardargelisaan. waana hubaa inaad si karti leh iyo isku filaanshaha isku tashiga aynu ku dhisayno waddanka aad qayb uga noqon kartaan una taabagelin kartaan. waxaan marka kelmaddeeda ugu dambaysa rabaa inaan dhallinyarada kula dardaarmo adinkoo iskaashanaya oo isku mid ah waan cidna annaga waxbaan uga hadlayn inaad la shaqaysaan guddoonka heer koow wasaaradda iyo guddoomiyaha oo inagu noqon doona hormuud insha allahu biidnillaahi kariim. waqti dhowna aynu aragno garoonka
degmada boosaaso oo casri noqda insha allah billahi kariim aad iyo aad baa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa inay hambalyeynayaa farxad ku ciidaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan farxaddan inagala soo qayb galo abaabulka iyo taabagelinteedana guddoomiyaha iyo intii ka qayb qaadatay mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadcelinayo ugu dambayn bahda saxaafadda oo cumar dheere iyo raggaan u jeedaa ay horteeda ka muuqdaan waa mahadsantihiin oo ku guulaystay waxaa la yidhaha cabdiraxmaan cismaan ismaaciil wuxuu orday 5 daqiiqo iyo 51 sekond ayuu ku orday ciyaartooygaas soo dhaweey cabdiraxmaan cismaan ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم كالنت اللغات waxaa ku guulaystay cabdiraxmaan shabcaan cawad wuxuu orday 5 daqiiqo iyo 40 sekond soo dhawow cabdiraxmaan kaalin saddexaad waxaa inoo galay wiilka la yidhaaho najiib khaliif barre oo magaca ciidan ku hordeeyey soo dhawow najiib ama ka socday xaafadda horseed aad baan ugu faraxsanahay inaan tartanka ku guuleystay ama ka galay kaalinta koowaad xasanahay tartanka laga furay magaalada Boosaaso inaan ka galay kaalinta labaad waxaan u madcelinayaa qabanqaabiyaasha koobka ka furay dowladda hoose antii waan idin salaamay kaalinta saddexaad baan ku guuleystay tartankan shucuurteeduna maanta wax la soo koobi kara maahan aad iyo aad baan u faraxsanahay